wajahaya degmooyinka waa bariyo sidoo kale dharkin leh waa kulan xamaasad leh waa kulan xasar leh waa kulan xiise gaar ah leh waa samid kamid ah kulamada mucaashaqiinta kubadda cagta oo il gaar ay ku hayaan caawa booska ay ka ciyaari laayeen booska u baahan inay iska adkayaan barta ay ka jilcayeen iyo barta ay tahay kubadda positionka ay ka qaataan kasta waa bari waxay soo tuuran doonaan bulus masaafaan ka dheer shabaqu ilaalinaya goolayaa degmada lagu magacaabo dharkin leh xuseen ayaana kubaddaas soo korosay yaaya faarax serji ayaa kubaddaas ka soo saaray degmadiisa dharkin leh gadaal ayaa kubaddaas la soo dhigay dharkin leh ayaa kubadda la wareegan markan si qurux badan ayaa loogu tuuray waa kan ciyaaryahanka lambarka 17aad si kastaba ugu dambeyn abwaanka ayaa kubaddaas dhacna ka jiray abwaanka ayaa interception sameeyay abwaanka ayaa kubaddaas burburiyay si sameeyeen in kasta ugu dambeyn kubaddaas ay soo burburiyeen mar kale xidigaha degmada dharkin leh cabduqaadir maayaale baastaan ayaa la baasay qatar daabesa garsoor cadibinta asariga ayuu ka dhawaajiyey zakariya jajay markay ka aado kubaddaas ciyaaryahanka lagu magacaabo zakariya jajay dharkin leh ayaa baraarka xiranaysa waxaana ka mid ah maayaale lalay bannaanka بوليسيالا برتماها جرونكا مسافة ديرنا وجرى الشبق ويلان ليا بوانكا على سكر سكوب داسيو سكستم قدام بير وهو بتباشر قول عياله ومقعبو أبوانكا قاركود قدها جرونكا يوكو سوغيين halka qaar kale bannaanka ay ka daawanayaan dharkin leh qatar صلاح bannaanka الله معيات فرصة عجيبة الله معيات فرصة غريبة الله معي فرصة قروح بدن صومرت صلاح إنك استوى قدام بيانكو بداسي بناك اي كادي حدنا حدقا عدق مدرر كله ولي وادولان فارح سيرجيو باصي عني وصوريقاي صلاح مركله ما يالا بناكا سيقستوى حالا قرية قرب لاف حدقا عدق مدرر كله سيقستوى حالا قرية قرب لاف عبدو غادر ما يالا سيقستوى حالا قرب لاف لوريقاي بربارتو وابري بلا إنه داونا مركله بلا إنه الشارع السرك قيمانه مركله حالة دي هالستهذا كده على الدين انت لحاده ويلان ليو قول يا دق ماذا وابري أبوانكا يوكب بدي تكسي قال هذا وطابت اللاعب كلو مقعب الصلاح تنك دق موين قبل كبنادري إذا ياكو قولي سنسي وحانا يككلا غادين شبس يصلو كلاودان كبض أثرة يا يا سلام يا حساتي ولا قريب عيريان كلو مقعبو ما يالي ودبان قرصار عادي بتاعسل المره سيريغا يوكنا واجي وحانا غيبت كوبا عيارت الوكل مريا داوديال بربر قول اللهنا بربار تركين لا ياكو بدا سوعير قلنا سمركن يوكو سارك ديب تنك فيسبوك برتان كلنا يا ستان سبورس اديغو سوات كغيب غادن كرتا سيغستا بوالس كورا على كوبا مركن ciyaaryahanka lagu magacaabo baanaya ayaa diilinta laxaad kubadda ka helay saddex labadina way ka sameeyeen weerarkooduna waxaad ka garan kartaa in ciyaartooy ay tahay weli barbara gool laana maxamuud ayaa kubaddaasta markan maxamuud si kastaba ugu dambeeyaan kubaddaasi burburin cajiib ayuu sameeyay gool ayaa buwanka ayaan ka dhowr sugaynaa kubadda inuu soo ciyaar galiyay markan maadaama laba daqiiqo ciyaarta lagu daray soo ilaatay garsoor cadibinta Saciid Mire seeriga ayuu ka dhawaajiyay waxaana gebi ahaanba ciyaarta ku soo ilaatay daawadayaal 80 daqiiqo ugu talagalay barbara gool laana waa bari sibir dharkii la sibir si kastaba lambarka 19 degmada waa bari waa uu taagsaday waa uu talaabsaday golaatso ayaa kubadda u taagan lambarka 7 ee degmada dharkii Pedro waxa uu wajahayaa goolayaha Pedro ya salaam gool Pedro ayaa si qurux badan kubaddaas u dhaliyay miyuu ibra shabaqa dul dhigi doonaa waan eegi doonaa waa tii labaad ee waa bari bannaanka waxa uu wajahayaa goolayaha lagu magacaabo Cabdirasaaq waa uu talabsaday bannaanka markii labaad bannaanka waa bari way khasaariyaan waa bari way lumiya ciyaaryahanka lambarka 17 ayaa la soo tiray Mustaqbal golaatso oo ay dhaliyaan dharkin leh wax kasta way dhamaan doonaan si kastaba si qurux badan ayay u dhaliyaan ciyaartooyda degmada waa bari
goolkulaadkii afraad ay tuuranayaan markan ciyaartooyda degmada Dharkinley waa biri goor hore 4 goolkulaad ay u tuurteen 2 way dhaliyeen 2na way khasaariyeen Dharkinleyna 3 ay tuurteen 2 way dhaliyeen 1na way khasaariyeen markan waa Salah gool si kasta waa goolkulaadkii ugu dambeysay waa biri ayaana u taagan Cusmaan waa laga qabtay Joka Ballo Joka Vinito ciyaartu way dhamaatay mudane Umar Maxamed Maxamuud Umar Filish iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya xildhibaan Khaliija Maxamed Diiriye waxaana gudoomay Faarax kabtan